بسم الله الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الأحبة waxaynu isu sheegi doonaa in sha allahu tacaala iyadoo xasuusina xawla aaya min kitaab illah ilaahi subxaanaه wa tacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa laqad kaana lakum fii rasuuli illahi uswat xasana liman kana yarju allaha walyowma alaakhira wadakara allaha kaiira aayadatan oo suurat alaxzaab ka mid ah axzaabna waa qur-aankii ku soo degay wakhtiyadii nebiga ugu adkaa calayhi salaatu wasalaam oo dagaalkii gaal oo dhammi isu kaalmaysatay hadday tahay quraysh khatafaan acraabtii kale yahuud mushrikiin iyo yahuudiya cid waliba nebiga isugu timi calayhi salaatu wasalaam laysu bahaystay oo iyadoo laga yaabo dadka madiina degan oo dhammi 3,000 oo qof inaanay ka badnayn xawaalay ciidamo 10,000 oo qof soo dul degeen oo ilaahay ghaswada markuu sifaynayo uu ku tilmaamayo in kor iyo hoosba lagaga yimi oo zilzaal inuu ku dhacay ayaa ilaahay dadka muslimiinta wuxuu ku leeyahay laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana اللام الموطأ للقسم هي حرف التحقيق قد أي إلهي اسكدري إلهي بعد نهارنا سبحانه وتعالى له الله قدرته قد كان لكم حقيقة وحا إنه النبي محمد يدين كسوغن يهي أسوة حسنة قد يشفي عنه إلهي وحوري في رسول الله ظرفك والنبي قردان عليه الصلاة والسلام يعني مركا ليلة في رسول الله ميل قارا لما تلمامين في أقواله وأحواله وأفعاله نبي قردان مانتي بايدن كسو غنطهي إشي سهديتي اكتي سهديتي قعنتي سهديتي لكتي سهديتي نبي قردان مانتي أما أحواشي صردن ونبي عليه الصلاة والسلام أبو النقضي وضي خير بو النقضي قادو النقضي إمام بو النقضي نبي الرسول بو هايو ديرا قائد عسكري النقضي وحقف بني آدم الشقاق قبطه أردن بو قبطه